ilmahaaga 20 daqiiqo inaad la sheekaysato maalin walba bal isku day 20 daqiiqo kuma jirto baa la min غير توجيه ولا نص في waxbarashada kala hadlin homework kala hadlin 10 kala hadlin just kaliya sheeka ka dhig sheekayst 20 daqiiqo waqtigaaga dhan 24 hour 120 ka siin weyd طيب لمبر 2 waxa kamida التعبير waxaad u sheegtaa ilmahaaga inaad jeceshahay maalintii u fiirso waxa laga yaabaa la yaabto 5 jeer ilaa 10 jeer waxaad ku tiraahdaa waa ku jecelahay jumcadii ku horeysay waxaan joogay Toronto masaajidka Khalid marka waxaan ku yiri bal tatbiiq ku sameeyay practice arintan habeenkii muxaadaro aan ka soo jeediyay aaba ayaa intaan fadhiyo muxaadaradu socotay wallahi weegii hore dhacday qisadaas intii la fadhiyay baa waxaan ku yiri bal hadda waxaad ku dhahdaan waan ku jecelahay ilmihiin u sheeg hadda intaad fadhidaa aaba wuxuu u qoray gabadhiisii aabo waan ku jecelahay waana ku duceeyaa isla second daqiiqadii waxay u soo jawaabtay aabo waan ku jecelahay waqti walbana waan ku duceeyaa markaan muxaadara ka baxay buu yimid wuxuu tusay message kale oo uu u diray 25 maalmood ka hor oo uu ku yiri aabo isoo wac kelimadaas u adeegsan aabo isoo wac 25 maalmood gabadhu dhalimeyn u jawaab hal kelimo kuma dhig markaan iri hadda bal isku day yaa wuxuu ka bilaabay aabo waan ku jeclahay waxay tiri waan ku jeclahay aniguna isla saacadii marka macnay sameynaysa goorma kugu dambaysood ku tiraahdo waxa la yiri niman baa waadhow laga qaaday interview waxa la yiri kulligiin waxa la idin weydiinaya hal su'aal oo isku wada mid ah goorma idin ku dambaysood xaaskiina ku dhahdeen waan ku jeclahay marka mid wuxuu yiri maanta midna shalay midna daraad mid weegii hor mid sanadkii hore aan markuu yiri waa ku jeclahay waxa la yiri hadda bal message kan u wada dira kulligiin message-ka wuxuu ahaa waa loo dhiibay waxaad ku tiraahdaa qof walba xaaskaaga waan ku jeclahay يعني سيدا عين نوح وخلدينا بان ربعين أو كتوسو إنك واحد بدن فجودا بانوس أصعدا إنك كان إنك كلفوجان هذا الرير تاين إنك كلفوجان تكاني هذا أوبا تاين إنك كلفوجان توارد كان مسج كيبه والله درين كاسوني ولا بيروا كجعله تيو الرئيسي أو سوج مركب حالة جوابه إنكوا آخريننا نقول بو بسوج سمايا هذا آخر جواب تنين كاس ساقر ده كان هو مقليا كبر دو الرئيسي وحي ساقرتي miyaad soo waalanaysaa maanta tii ku xigtayna waxay qortay mahooyadaaba inoo soo socota tii saddexaad waxay tiri ma waxoogaa lacag baad iga rabtaa jawaabo noocaas ah kulligood soo wada qoreen 10 jawaabood oo kala duwan bay soo qoreen mid kale waxay tiri oo wacajab badnayd haddaad ii sheegin message-kan cidaad u dirtay guriga maanta imaan maysid يعني يدا كمون دحين وان ku jeclaa laakiin tu kala suuragal inuu ku yiraahdo waan ku jeclaa Sooma marka waxa soo baxay natiij bal rabo marka maxaa ka yimid waxa ka yimid inuu san midkoodna adeegsan been inay ahayd eragay lahaayeen shalay baan ku yiri waan ku jeclaa way lama yaabteen Sooma midna kuma oran xaaskiisa waan ku jeclaa marka caruurteena aan ku dhahno waan ku jeclaa 5 jeer ilaa 10 jeer bal aasaarkii reedka ka yimaada tijaabi adigu maanta insha Allah caawada tijaabi waxa inta ka duwan 5 jeer ilaa 10 jeer amaan ilmaha yarka waxaad ku amaantaa ficil sameeyay homework ka shaqeeyay 10 soo bartay wuxuu sameeyay ku amaan ama waxaad ku amaantaa ashakl alkhariji muuqaalka ka muuqda sidoo uu labisan yahay soo timaha soo jartay sidoo ilmuhu wiilkaaga sidoo ku amaan amaanta oo amaan waxa laga yaabaa tiraado ma istusba maxaa loo amaanaya waxyaaba ajabta badan tijaabine adiga weyn hadii lagu amaano waad kala fadfadaysaa kulligan amaanta waan jecelahay xaqiiqo way arintaas ruux aan jecelayn amaanta ma jiro marka ilmaha yarka maxaa u malay taasiirka ku sameynayso طيب waxa kamida waxyaabaha loo rabna inaan ku toosino oo nasaaixda 2 jeer aaba waliba ama hooyo waliba ilmahooda 2 jeer asbuuci guriga bal kala bax oo nishaad ka baxsan guriga la sameey wuxuu rabaa noqo ilaahu ma socod soo sameeysan kubadda la soo ciyaar caruurtiina kubadda wada magaaladeena meelaha caruurta lagu ciyaarsan raac waalidkii hooyada raac la soo arag طيب waxa kamida
laba jeer asbuucii reerku ha isla cuntay carruurta la fadhiiso cuntada way ka duwan tahay midda hadda guryaha laga sameeyo laga yaabo wiilku inuu mar yimaado cunteeyo gabadha itimaado waxeeda iska soo ridato ma waxa laga rabaa hal habeen oo la balansan yahay reerka dhan ay dhinac ka soo wada fadhiisanayaan xeerada afarta dhinac laga fadhiisto soo xusuusataan waagi hore sidii loo wadaagi jiray cuntada dhinacyada laga fadhiisan jiray طيب la fadhiiso carruurtaada meel degan adigoo la sheekaysan